dawladda Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa markii ugu horeysay dawladda Somaliland iyo maamulka Puntland ugu baaqday inay joojiyaan dagaalka ku dhex maray deegaanka Tukaraq oo ka tirsan gobolka Sool. Safiirka dalka Jabuuti u fadhiya Somaliland Xuseen Cumar oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu sheegay in aanu xal ahayn dagaal dhex mara ciidamada Somaliland iyo waliba kuwa Puntland isagoo ugu baaqay dagaalkaasina si degdeg loo joojiyo. Safiirka oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri labada dawladood isdiriraya Somaliland iyo Puntland waxaan leeyahay dad walaalaatiin dagaalka joojiya waa bishii Ramadaan Islaam baan nahay waxaan haddaan Jamhuuriyadda Jabuuti aan nigu baaqaynaa inaad nabad iyo wada hadal aad ku dhamaysatiin waayo maanta dhiig qof Soomaaliya inuu naga dhinto ma jecelin dad Soomaali baan wada nahay walaalaan wada nahay waxaan niga codsanaynaa si walaaltinimo ah iyo si muslimnimo ah iyo si dadnimo ah iyo si jaarnimo iyo si dawladnimo ah waxaan niga codsanaynaa inaad dagaalada joojisiin dadkeena naga dhimanaya aad joojisiin aad wada hadal iyo walaaltinimo aad ku dhamaysiin ilaahayna uu niga aqbali uu niga rabgali way dhamaan insha Allah laakiin waxaan leeyahay walaalayaal nabad baan rabnaa nabad ku wada noolaada dad walaalaatiin is afgarta ayaan leenahay waa Ramadaan bisha Ramadaan kariim baan niga leeyahay dhamaantiinba Somaliland iyo Puntland baan waxaan leeyahay Ramadaan kariim baan leeyahay wada hadal la ku dhamaysto wixiina. dhinaca kale safiirku waxa uu ka hadlay roobabkii duufaanada watay ee ka daay qaar ka mid ah gobolada Somaliland. waxa aan xaggan maanta aan uga dirayaa tacsi tiiraanyale dadkii reer Somaliland ee walaalaha ahaa ay ku gaadhay geerida tiiraanyada leh in duufaankii hameenka dhaweyd ku dhintay ayaan horta dhammaan dadka Somaliland iyo dawladda iyo xukuumadda Somaliland iyo madaxweynaha Somaliland ayaan tacsi tiiraanyale uga diray xaggan anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Jabuuti magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudan Ismaaciil Cumar Geelle magaca marwada koobaad marwo Khadra Maxamuud Xayd ee Jamhuuriyadda Jabuuti magaca xukuumadda Jabuuti iyo dhammaanba magaca shacabweynaha reer Jabuuti aanu afkooga ku hadlaya waxaan leenahay wixii duufaankaasi uu nigaarsiiyay walaalahayow dad walaalaan nahay samir iyo iimaan Allah niga siiyo wixii dhibaato nigaadhina Jamhuuriyadda Jabuuti waa dawladda ugu horeysay ee walaalihiina ee niisoo gurmadkiina waa la wadaa wixii hadhayna waa la wadaa waxaan leenahay Allah niga samir iyo iimaan wixii niga dhintayna Allah niga siiyo wixii waxyeeloobana insha Allah waa laga soo kamay. Badri Koosar Maxamuud telefishinka Ariel Hargeysa.